war ogaalka adduunka waxa aan laga waayi karin oo soo noqnoqda xaaladda gooja cadda oo gooja cadda maray gala dagaalka cibaadaysi kullis habee qalas qanimad huwanta bariya culusta kordhibci qabaalka dambe ayay ka tuuray cibaadaysi waanu ku tukanay gooja cadda ayaanu weerar ayaanu ku qaadaynaa gooja cadda xaaladda laas caanood oo gooja cadda maray halka ay jooji landheeraan ahay oo 18 milyan ayaan ahay haddana laba hablood oo yaryar oo ciyaala iskuul ayaan weerarayaa ilmaadeerayaalow bal isu kay qabadsiiya guul darrada iyo dawqa soo gaadhay nimankii bariya culus ahaa heer waxay gaadheen in Mareykanka ay ku weeraraan laba hablood oo yaryar ciyaala iskuul inkastoo hablaha yaryari wallahi mujaahidiin bay ahaayeen si wax sigicdi ma ka helayba muuqaalkan waxa kugula wadaagaya afar arrimood oo ku cadeynaya dhabar jabka iyo dawqa soo gaadhay iyo dhaawaca soo gaadhay dadkii landheeraha sheegan jiray marka hore muuqaalka like noo saar kanaalkana dadku cusubta subscribe saar page-keygana haddaad hore u soo follow gare muuqaalada page-keygana si share gaar naga share garay ilmaadeerayaal ya page kale ma leeyahay kaasoo maraan ugu leeyahay nimankii isa soo urursaday dhaawaca iyo damage-ka soo gaadhay heer waxay gaareen hablaha yaryar ee ardayda inay qurbaha ku weeraraan tusaale yar dhankan leeg dadka naga yarxi halka waxay niga muuqanaya laba hablood oo yaryar oo meel soo galay oo arday waliba mid kamid ah waxay xilnad caalka Soomaaliya bixinay wala isku qabsay abow malawa qoladii inay taaqwacday weeyaan waa iyaga laftigood ya six wana aniga arrimaha qariib ku ah oo wareysanaya baayay waramo ko ku salaamay baay hawley baa u taganay salaamay baay waa ka qadan maxaa ahayd waxa nimanka diyada taaqwacdeen baay waxaan nimankii taaqwacmay dabada garanaysa nayda gursi adu wala is wareystay markii ogaadeen inay isaaq hablaha yaryar yihiin ayaa lagu bilaabay hablihii dawadi ka arkaya barida lagu soo shiidayo dhuxusha lagu dakhrayo kabtiga laxda lagu gowracayo waganaysa wallahi hablaha yargeysiin bay iska celiyeen wallahi way ku sheegay laba hablood ciyaal bay ahayd niyo isaaq ma qoslaaniyo ya nimanka dir la yiraahdo hawiye ma qoslaan wallahi shiid ya muuminiin iyago feer ku duwan yahay ka saxdaan baq iska ciyaarayaan ya way iska celiyeen horta marka koobaad reerka damage-ka soo gaadhay iyo guul darrada dagaalka ay kala kulmeen ya waxay ku kaliftay in hablo yaryar ay ardayda ay weeraraan waa qodobka koobaad qodobka labaad ee aan kuugu cadeynayo guul darrada baahsan iyo dhaawaca ka soo gaadhay bariyaha iyo dhuxusha iyo laxda ya waxa weeyaan aan su'aal marka hore ku weydiiyo lacalla wiilka adigu aad dhashay haddii ay dilaan reerka ay ka soo jeedo xaaskaagu hada walaaladeed ma waa qabiil ahaan reerka isku haybta yihiin haddii wiilkaaga ay dilaan halkaad wiilkaagii reerkaaga soo argudi lahayd miyaad inta gurigaaga ku soo noqoto xaaskaagii aad ugu argudi lahayd waa wiilkaaga hooyadii u dili lahayd waan ku aanaynayaa waan garanaysaa waxa kale la daawo jirtan baqada Soomaa odaygeeda iyo inankeedu dagaalka ku jireen marka inankii waa dhintay dagaal ku dhintay odayga intuu noqday raggii kamu aarsan ka soo horjeeday kuma sii jirin dagaalkii intuu bartii ka noqday oo gabadhii u tagay ay gabadhii dilay gabadhu qabaysaa kaadi waqti bariisiday war dadka dee caqli ma laha sheekada ma fahamtay nin iyo wiilkiisii ayaa boosaaso ka yimi ninka xaaskiisii oo dhashay wiilka ayaa labadoodii soo ama bixisay waa wiilkeedii iyo ninkeedii soo ama bixisay dagaalkay soo qabteen waa ma jeerteen waa bari culus aan dhalay la saacad markii la yimi wiilkii raa lagu quraacday mar allaaliya markii lagu quraacday odagii arkay wiilkii soo dhintay gabadhana waa isaaq ya ayuu ragii la dagaalamay iyo gooja cadam weerarade boosaasu weerar ciid ula ku qaada garanaysa
tawta bur ma garat ya sidoo si orday boosaso ayuu tagay xaaskiisii oo ahayd wiilka la dilay hooyadii oo gabadh isaaq ahayd ugu aarguday u gowracay u dilay wuu gowracay gabigeediiba isagoo leh wiilkayga lagu aargudaya hadii uu ugu aargudaya wiilkiisa la dilay hooyadii ayuu wiilkiisa ugu aarguday oo isagana xaaskiisii ahayd waad garanaysaa ilaa laascaanood ilaa boosasa intiisu jiraan ninkaas weerar celiyo dhula oo baryo culus u qaad kaaga sidareer heerkii ka soo jeeday bo wallahi ninkan waa ina googaar weyna googaar waa geesi waa qalas taray bari weyn garanaysaa maratu xaaskiisii dilay waa qodobka labaad ee ku cadeynaya guuldarrada iyo hooga iyo ba'a soo gaadhay huwantii iyo laxdii qodobka saddexaad aan kugu cadeynaya waxay tahay gabadhan wajigeeda waan qarinayaa oo idan uma haystee gabadhaas magaceeda waxaa la yidhaha Sumaye Axmed Xuseen baa la yidhaahdaa waxay ka shaqayn jirtay hospitaalka guud ee Garowe baryo culus lagu dhayo bariyaan meesha maxaa geeyo gabadh isaaqa gabadhaasi Garowe ayay ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay ilaahay naxariista abaheed uu dhintay la sarraabtigeed oo majeerteena hooyada bayar baryo culus hay garanaysa astaghfirullah iska raalaho iyo dimash annaga ku qabi jirnay bariga hore gabadhaasi ay abtiga u ahaayeen waxay ka shaqayn jirtay hospitaalka Garowe shaqadii bay ka yeeriyeen sababtii ugu yeeriyeen garanaysa maalmo dhaweed oo garanaysa baridooda laga yardhijiyo maxaabiis fara badan laga qabsaday oo leeriyada tiknika badan laga qabsaday oo meedkiya dhaawac Garowe istoomshay oo dhaawacii loola caaday Garowe ayaa muuqaalo laga soo duubay hospitaalka guud ee Garowe laga soo duubay baraha bulshada la soo dhigay way shakiyeen bow inaga nagama suurtoobnay inaan baryaheena duubne yayna ku dhex jira bow yayna ku dhex jira waxay doonaan ba gabadhan ay isaaq ka soo uriyeen hatta iyaga dhalay way keeriyeen maxaad ugu yeeraysaa baryahayaga duubtaade yaa kuli u duubal adiga baridayda duubay hadda maxaa baryahayaga Facebook geeyay Instagram geeyay TikTok geeyay bari wada dhaawac meesha inantii abtiga u haayeen waxay ku soo eediyeen qodob xaqooda ka xasaasiya in bariyooda aan la duubi karin soo dambi qaran oo ka dhana bariyaha shaqadii bay ka geeriyeen waa qodobka saddexaad ee aan kugu cadeynay nimanka guuldarrada soo gaadhay qodobka afraad ee aan kugu cadeynay guuldarrada baasana kabtiya laxda soo gaadhay waxay tahay ninka garanaysan ilaahay naxariisto dambigiisa dhaaf nin sarkaal sare oo taliya abu ahaa oo la dilay ninkaas dhimashadiis geeridiisii reerka uu ka soo jeedo waa hooyadii aabihii iyo family-giisi way ka qariyeen markay ka qariyeen maxaa dhacay muddo 20 cisho ka bacdi ayaa laanta BBC-du ay warbixintiisa soo dhigtay in ninkan dhintay ilaahay naxariisto markii geerida ninkan ay BBC-du ay soo dhigtay maalintuu dhintay 20 cisho ka bacdi ay soo dhigtay waa iska bildee ayaa family-gi ninkan ka soo jeeday sida hooyadii aabihii walaaladii family-giisa wax xanaaqay garaadada la soo wacay master kala khamrigow maxaad xaws sheekada ma gala geerida oo qariya bay ahayd miya sheekadu ninkan iyadoo ciidanka Soomaaliland ay dileen ilaahay ha u naxariistay haddana magtiisii waxa bixiyay garaadada maadaama ay geeridiisii qariyeen wallahi been kuma sheegay wallahi eeg waa jabkii ugu weynaa ku dhacay nin sarkaal oo dhintay la qarinaya family-giis adiga walaalka ama abaha geeridiisa hadii laga qariyo sadiyeen leh master galad khamriga wada dagaalami lahayd Soomaa waa qodobka afraad ee guuldarradooda ku cadeynaya ninkan magtiisina waa la kala tirtay markuu sidaa u dhintay hadee family-giisa u sheegi lahaayeen mag lama weydiiyeen oo iyaga ugu tala galay ninkooda inuu xoreynta raaco laakiin se wiilkoodii dhintay ayaa bilka bacd waliba BBC-da sheegtay ma bay sheegeen waa qodobka afraad ee guuldarrada soo gaadhay nimanka guuldarrada waxa ugu caan ma taqaanaa nin bay soo dhaweynayeen General Helel oo lagu soo dhaweeyay laascaanood imika tusaalahan ninka ha kaaga muuqanaya waa nin dhuxulaysata warsageliya maalintii hore la soo dhaweynayay dadka soo qorsata la soo dhaweyn Allah ya 40 nin buu qabaayo hore u dilayo masaaq buu daahaya bay yiraahdeen mid ay iskan ilmaadariin baa soo galay ni qaraskii weynaa baa soo galay laascaanood imika ayaan waxaan ka tagaynaa calanka khaatimo Hargeysa iyo Burco ila dhageyso الله السوالي ما دورني لكن وإذا تصينا علن كخاتومه كتاجن هرجيسة علن كخاتومه هرجيسة كتاجن عندهن أرجع تشوش يا الله ما يبرعي هرجيسان بحول كتاجن يا ورسنجليها يا
kalsooni bay ku qabayday wuxuu lahaa ninkaa maarta ninkaa calanka khaatimo iyo burco iyo hargeysa iyo ka taagaya aan garanays yaa saacad ka bacdi maxaa dhacay ninkii taageeradii laga bajiriyay xalakee astaghfirullah oo kaadi in adeer ma waxaanay hablaha yaryar ardayda weerarinba ma waxaanay hablaha yaryar isbitaalada ka eriyinba ma waxaanay xaasaskooda dilinba nimanka waxbaa la tusay walaalayaal iyo wax ka taweyn baa helay wax ka taweyn oo ceebtoodii banaanka keenay yaa waxa taa ka daran wixii taalo iyaga loo dhisay oo dhan dhulka la soo dhigaya dabeen bay ahayd